xuseen aadan cige xuseen dayr afhayeenkii madaxweynihii hore Somaliland oo la hadlay telefishinka Ariel ayaa ka hadlay buugga maalimihii u dambeeyay buuq iyo jahawareer ka dhex abuuray bulshada Somaliland ee uu qoray hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan. afhayeenku waxa uu si gaar ah isku dul taagay qaybaha buuggaasi ee ka hadlaya madaxweynihii hore Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. qoraaga buuggan oo ah hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan wixii uu isagu ku qoray horta isaga laga xisaabtamaya. anu dabcan madaxweynaha waxa weey caafimaadkiisa iyo noloshiisa iyo dabnimadiisa iyo dabeecadiisuba waan la soo shaqeeyay. dalkana isaga maamulay cid aan ahayn isaga oo maamulaysa ma jirin. cidda wax magacaawda, cidda magaranaysa wax soo saarta, cidda go'aamada gaadha, cidda ugu dambeysay ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo igmatay wuxuu Axmed Silaanyo sida Muuse Biixi hadda loogu igmaday. xanuunkaasi haba yaraatay wax alla wuxuu iiga muuqday oo madaxweynaha aan ka ogaa ama aan oran karo uu xanuunsanay ama xasuustiisba hoos u dhacday haba yaraatay ma jirto. madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Silaanyo oo uu sheegay in markii muddo bila uu joogay dabcan xusuustiisa ay si yaraanaysay sida uu isagu dhigay waliba si xooga oo xaaladda caafimaad dabcan dad badan u tafsiirsheen. adiga horta afhayeen ayaa ku magacaabay. su'aasha haddaan toos uga jawaabo aniga waxay magacaabay oo si sharci ah igu magacaabay madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. afhayeen hore xuseen dayr oo aan weydiiyay su'aal oranaysa inuu isagu qayb ka ahaa buuggaasi iyo qoraalkiisa waxa uu igu jawaabay isagoo qabyo qoraal ah ayaan buuggan la qoray. dabadeedna buuggan waxaanu bilownay bishii tobnaad sanadkii 2014 waqtigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada anuu xukuumadda wax xilaa kama aan haynin. Oktoobar 2014 buuggan ayaanu bilownay maalintii ugu horeysay inaanu qoraalkiisa aanu u tafaxaydano. wuxuu soo socdaba wuxuu nala soo gaaray ilaa sanadkii dambe bishii 9aad 18keedii 2015 ayaa buuggan qabyo qoraalkiisa isagoo markaa qabyo ah oo Xirsi Cali Xaaji Xasan aan ku wareejiyay si uu dabadeeto u habeeyo. isla sanadka 26kii Oktoobar 2015 wasiir Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo wasiirro kale ayaa xukuumadda ka tagay oo iscasilay. maalin ka bacdi 27kii bishii tobnaad aniga waxa la magacaabay afhayeenka madaxweynaha. sidaas daraadeed buuggani qaabkan uu hadda yahay anigu waxba kama ogeyn. laakiinse buuggan Xirsi la qoray qaybo badan oo kamid ah way ku jiraan. laakiinse nuxurka ku duugan iyo soo saaristiisa iyo qaabkan imika uu yahay magac bixinta imika la yiraahdo miyiga ilaa madaxtooyada waxa weeyaan mid uu qoraagu magaranaysa iska leeyahay. buuggii horena aanu magaranaysa la qoray buugga macnihiisu waxa la oran jiray guusheydii. marka wuxuu hordhac u ahaa silsilad 3 buuga oo Xirsi Cali Xaaji Xasan ku tala jiray inuu qoro. intaa hore marka ururinta taariikh nololeedkiisa ilaa uu madaxtooyada soo gaaray maalintuu dhashay ilaa uu madaxtooyada soo gaarayay buuggan waan la qoray. laakiin nuxurkiisu waxa weeye waxna waa laga bedelay waxna wuu ku daray dabcan taana isaga ayaa u madax banaan. marka intaasan ka ogay buug xuseen aadan cige xuseen dayr oo sida oo kalena qoraalada aqoon dheeraada u leh ayaa sheegay sida oo kale in cid kasta oo dhibsatay qoraalada qaar ku qoran buugga uu qoray hogaamiye Xirsi ay ku dacweyn karto cidii dhibsata ama ha noqdaan qoyska madaxtooyada ama cid kale oo Somaliland ama cid kale oo dan gaar ah ama dan dadbab kalihi haddii ay dhibsadaan ama ay u arkaan in uu gaf ku sameeyay ama ereye gafi ku qoran yahay cidii u baahata of course dacwad furan kartaa. waa la furan karaa dacwad waana lagu dacweyn karaa waxaana la oran karaa sir qaran oo madaxweynaha u gaara lana xiriidha caafimaadkiisii ayaa halkan ku qoran. Xirsi Cali Xaaji Xasanow sharciga kuu banaynaya inaad caafimaadkii madaxweynaha ka sheekayso adigoo wasiirkii madaxtooyada ahaa waxa weeyaan dadkii cidii u baahata way dacweyn kartaa. Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.